deeq raashin ah oo soo dhiibay xisbul xaakinka kulmiye ayaa loo qaybiyay in ka badan 400 oo qoys oo degan deegaanada Jiri iyo Fiqi Aadan oo ka tirsan degmada Saylac. qaybintii deeqdani ayaa waxa goob joog u ahaa wasiirka hore wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo kamid ah guddiga ololaha heer qaran ee gobolka Awdal. maayirka degmada Saylac mudane Saacad Daahir Cige, xildhibaan Mustafa Xasan Cabdilaahi oo kamid ah kulaha deegaanka ee degmada Saylac, oo Cismaan Ibrahim Axmed oo kamid ah mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye. qaybintaasi kadib waxaa halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyay Cismaan Ibrahim Axmed, xildhibaan Mustafa Xasan Cabdilaahi iyo Cabdi Saciid Faahiye, wasiirka hore wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha. maanta waxaan tulada Jiri waxaan qaybin doonaa raashin ka kooban bariis, sokor iyo saliid iyo timir, taasoo deeqda xisbiga kulmiye uu ugu deeqay deegaanka Jiri. waxaan leenahay hambal leenahay insha Allah taala. waxaan halkan maanta u joognaa ama aan idin wadnay waxay ahayd waa deeq ballaaran ma deeq yaro kooban oo loogu talagalay dadka masaakiinta ee barakacayaasha oo ugu talagalay xisbiga mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye ay ugu talagaleen inay dadkooga walaalahooda ee baahan ee barakacayaasha ay la qaybsadaan wixii abaarihii dhibaatadii ka soo gaadhay inay wixii ay u qaban karaan ee itaalkooga xisbigu inay ku caawiyaan sida siyaasadda xisbiga ama madaxweynaha xisbigu u dhigay musabixi abdi ahna madaxweynaha qaranka inoo sharaxayna u codaynayno soo ma codayno soo dhammaanteen ma codaynayno wuxuu yidhi dadka tabaalaysan ee barakacayaasha xoolihii ka fara baxeen raashinka hala siiyo waa sadaqad jeelashii dhakhtarradii jimcihiiba xisbigu dhammaan u qaybiyey masaafadda oo dheer awgeed ayaa idinka maanta fursadda iyo nasiibkiinna oo idin siiyey idinka intaa inaad maanta ku heshaan isagana waa u nasiib wanaag oo waa u sadaqad idinkana waa idin waxtar. dhanka kale faa'iidaystayaalkii deeqdani qaar ka mid ah ayaa halkaasi iyagu hadallo mahadnaqa uga soo jeediyey mas'uuliyiintani raashinka halkaasi ku qaybisay. waxaan leenahay hambaliyaan leenahay annagu waxaan nahay dadkii tabaalaysnaa, waxaan nahay dadkii barakacayaashii baan nahay. deeqdana noo keenay ee noogu soo dhiibay intiina noogu soo dhiibay ay noo keentay waan ku mahadnaqaynaa. isagana madaxweyne jira allaha ka dhigaan leenahay annaguna inaan ku hambalyaynayno oon u footaynayno oon isaga ku kalsoonnahay iyaan ogsoonnahay. maxamed cawaale daahir, Cable TV, Saylac.